Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada janaalka Ecovlogs waa mar kale iyo magaalada Hargeysa iyo muuqaal cusub muuqaalkan maanta waxaan ugu talagalay inaan idin soo duubo magaalada Hargeysa wadooyinkeeda maqaar baab ah oo aan la mari karin oo wada burbursanba mise Hargeysa waxay leedahay wadooyin fiican oo la mari karo kolley waxaa jira dad wadanka ay badan ka maqnaa oo aan xog fara badan ka haysan isla markaana inta badan jecel inay waxa wadanka ka jira ay dhigayaan ama ay dadku wax u sheegaan laakiin waxaan jeclaystay inaan wax walba oo Hargeysa ka jira aad indhiina ku aragtaan waxaa jira magaalada Hargeysa meelaha qaar wadooyinkeedu waa kuwa burbursan oo hadal kama taagna laakiin Hargeysa wadooyinkeedu ma wada burbursana waxay leedahay wadooyin cusub oo imika la dhisay iyo kuwa hore oo wali bad qaba oo si fiican loo mari karo quality-gooduna aad fiican yahay haddaba waxaan doonayaa maanta inaan soo duubo wadooyinka cusub ee magaalada Hargeysa laga dhisay iyo qaabka ay u eg yihiin wadadan ayaa waxay ka timaadaa UNDP-da waxaanay ku dhamaataa UNDP-da hadaan si fiican u garanayn waa halkii la oran jiray birish leeleca iminkana uu ka dhisan yahay birishka Bibsiga waxaanay ku dhamaataa taliska guud ciidanka Somaliland ayaa ay ku afkoodaa marka wadadan runtii waa wada aad u qurux badan quality-geedana aad loo hagaajiyay waana wada cusub oo imika la dhameystiray wadada kale iyaduna laga dhisay area-dan ayaa wax ka timaada bridge-ka Bibsiga ama bridge leeleca waxaanay aadaa xaafadda Shaburama waa wadadan marayno oo runtii iyadana quality-geeda iyo aad loo hagaajiyay oo ah wada aad qurux badan kolley wadooyinka badankoodu waa wadooyin cusub oo imika la dhisay wadadan laftigeeda ayaa iyadana dhawaan la dhisay wadooyinka magaalada Hargeysa laga wadaa intan kuma eka waxaa jira kuwa wali aan la bilaabin oo qorshahoodii la dejiyay iyo kuwa imika uun ciidii la dhigay oo la bilaabi doono iyo kuwa socda iyo kuwa dhamaaday waxaa jira wadada bypass la dhaho ee Hargeysa dusha ka mari doonta oo wada aad weyn ah gaadiidkan waaweyn ay adeegsan doonaan sida baabuurta Itoobiya iyo baabuurta weyn xamuulka gobolada kala baxa waxaa jira wada kale la dhaho wadada 200 oo iyadana iyo wadada 150 mari doonta oo runtii iyadana la dhisi doono oo noqon doonta wadooyinka magaalada Hargeysa ugu weyn ee halbowlayaasha inkastoo aan imika soo duubin oo aad iga fog tahay laakiin waxaan jeclaystay inaan wadooyinka kale ee magaalada ku yaala soo duubo qaar kamid ah wadadan ayaa iyadana waxaa ka soo laabataan bridge-ka Bibsiga waxaanay martaa ama Imperial bay ka laabataa waxaanay martaa madaxtooyada dhabarkeeda oo runtii ah wada aad quality-geeda loo hagaajiyay oo si fiican loo dhisayo isla markaana leh wax kasta oo ay wada lahayd oo wada loogu talagalay haddii noqoto dhulka ay dadku marayeen haddii noqoto drainage-ka ama bilacadihii ladherkii oo loo sameyn doono calaamadihii wadada loo kala xidheeyay oo runtii quality-geeda aad loo hagaajiyay marka sidoo kale maayirku wuxuu sheegay mar uu xalay xaflad ka hadlayay waxaan filayaa inay daawateen inuu magaalada uu dheerayn doono uu dhir fara badan ku beeri doono wadada hareeraheeda dhir fara badan uu ku sameyn doono sidoo kale insha Allah markuu roobku da'o uu xoolaha ka saari doono magaalada kale wali xoolaha magaalada lagama saarin cabasho dhinaca dadka ka timi awgeed marka wuxuu sheegay haddii uu roobku da'o ilaa bisha 4 ilaa bisha 5 inuu xoolaha gabaanba magaalada laga saari doono isla markaana dhir lagu beeri doono oo wadooyinka aad loo qurxin doono marka qorshayaashii kolay dawladda hoosena way soo socdaan sidaa ula socda kolley muuqaalkan sababaan soo duubay waxa kamid ah
dadkan magaalada joogin aan magaalada warka u haynin inay xaqiiqada ogaadaan. Waxaan arkay dad inta badan markaan wax soo geliyo dadku badankoodu commentiga waxa dhahaan magaalada wadooyin ma jiraan, magaalada way burbursan tahay, magaaladu ma dhisna wax weeyaan. Yani iyagoo dhinaca dowladda aad u dhaliilaya. Anigu horta muxaafid meehi dowladda ma garanaysaa dee taageero gaar ah uma hayo. Muwaadiniinta reer Somaliland ma kamid ahay jecel inuu dalkooda horumaro oo ay arkaan dhulkooda qurux badan. Inta badanna wax wanaagsan inaynu is dhiirigelino oo aynu wax fiican isnidhaahno. Sababtoo ah haddii dhammaanteen aynu mar walba is ceebayno oo midka kale ma garanaysaa yani wax dhiirigelinba ama hadal wanaagsan ba afkeena ka soo bixi waayo. Waxa jirta waqtiyada qaar in qofku hadallada uu ku hadlayo marka qaar loo qabto oo ilaahayba carabkooda u qabto. Marka inta badan wax wanaagsan markaynu wax sheegayno inaynu wax wanaagsan ku hadallo, inaynu madaxdeena u ducayno halkaynu habaari lahayn oo caayi lahayn, in ma garanaysaa markasta aynu wax wanaagsan filano oo aynu khayr filano, ilaahay wax wanaagsan ka filano, dowladdeennana wax wanaagsan ka filano, walaalaha iyo dadka kale muslimiintana aynu wax wanaagsan aad ka filato. Wadadani waa wadada Jigjiga yar ee halbowlaha ah. Wadadaas oo ka timaada dhinaca madaxtooyada dhinaca Jigjiyarta sare ilaa 100 jir u baxda oo waa wado runtii aad muhiim u ah. Waana wado la dhisayo oo inkastoo ay qabyowday laakiin wali way socotaa drainage-kii waxyaalay oo dhan waa laga hagaajiyay. Inta badanna wadada waa la dhammaystiray. Waana wado aad u saxmad badan oo aad ay baawartu isticmaalaan. Tan iyo kuwa kale oo gacanta lagu hayaabo oo jiraan oo imika la bilaabay iyo qaar la bilaabi doonaba sida horta dadka la socdaan. Wadankeena runtii isbedel iyo horumar ka jira laakiin dadka qaar baan dareemin oo ma garanaysaa dee waa isbedel xawli aan ku socon laakiin maalinba xun baa lagu daraa laakiin haba yaraato wax naga burbura ama wax dagaal sokay naga baabiya ma jiro laakiin maalin walba xun baa inoo soo kordha. insha Allah halkaynu rajeynayna waynu gaari doonaa. Dhammaantiin khayr baan idin rajeynayaa sida ay la socod wanaagsan iyo muuqaalo dambe oo xiiso leh insha Allah idin soo duubi doono. Inta badanna magaalada Hargeysa gudaheeda ayaan wax ka duubduuba sababtuna waa inaan mashquul ahay oo aanan fasax aan haysanan meelaha fogfog aan ugu baxo laakiin insha Allah waan rajeynayaa inaan future-ka meelo fogfog oo guud ahaanba wadanka kamid ah aan u baxo gobolada aan u baxo meelo fara badan aan wax ka soo duubo. Khayr baan idin rajeynayaa.